maamulka gobolka iyo kan degmada Garbahaare ayaa waxa ay si wada jir ah xariga uga jareen taalo cusub oo laga hirgeliyay degmadaasi faynta warkaasi waxa ay noo haya wariyahana Umar Aydruus Ahmed iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay socotay dhismaha taaladan loogu magac daray wadajir isla markaana lagu dhisay si iska wax u qabso ah ayaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray waxaana xarig jarka taaladan wadajir ka soo qayb galay dadweyne aad u badan mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Gado iyo sidoo kale kuwa degmada Garbahaare saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana goobjoog ka ahaa munaasabadan gudoomiyaha gobolka Gado mudane maxamed aadan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gado gaashaan la dhexe Maxamed Caddow Cali iyo mas'uuliyiin kale taaladan ayaa kaabiga ku haysa xarunta madaxtooyada gobolka Gado ee magaalada Garbahaare waxaana ay wax weyn ka bedeli doontaa taaladan wadajir bilicda magaalada Garbahaare ee gobolka Gado ugu horreyn waxa goobta hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Gado mudane maxamed aadan oga mahadceliyay bulshada sida ay uga qayb qaateen dhismaha taaladan wadajir oo maanta si rasmi ah xariga looga jaray bismillaahir rahmaanir rahiim dhismahan taalada dhowr xigmad buu sameeynaa awalan wuxuu sameeynaa bulshadu haday isku tashato oo si wada jira inta ay u istaagto inay soo ceshato bilicda magaalada waxyaabaha ka soo bixi kareen natiijadooda waxa kamid ah argada taaladan aadka u quruxda badan oo lagu dhisay wada jir magaceedana la yiraahdo wada jir sidoo kale to argadani meesha ay ku taalo waxay ahaan jirtay meel geeda leh meel qashin quba waxaan aad ugu mahadinayaa Rabbi subhanahu wa ta'ala na garansiiyay noona fududeeyay in meeshan laga shaqeeyo nadaafadii qashinkii ku yaalay laga qaaday lagana dhisay dhismahan aadka u quruxda badan dhismahan waa roundabout weeye wadadii isku dhex jirtay yuu kala qaybiyay wuxuu kala qaybiyay boosishinadii ama meelihii baabuurtu ay kala mari lahaayeen sidoo kale wuxuu kor u qaaday bilicdii iyo quruxdii wadada wuxuu kale tusaale u yahay gurigan hadda backgroundkiisa aad arki doontaan ee naga dambeeya waa madaxtooyadii gobolka Gado wey madaxtooyadu way burbursan tahay muddo ku dhawaad 30 sano ah way wax dayactir ma aysan helin madaxtooyadu way burbursan tahay haddii aynu wada jir ku sameeynay dhismahan waxaan shaki ku jirin haddii aan isku tashanana inaynu dhismahan dhiman ee madaxtooyada oo ah wajigii gobolka Gado caasimadiisii in isagana si dhaqso ah aynu ku sameyn karno sababtoo wax walba waxa naga xiga dadaal haddii aan dadaalnana waxaan ku dadaalno waa gaaraynaa waxaan ku gaari karnana waa midnimo wey marka taaladan inay ahaato midnimadaas oo ah in dhammaan qaybaha bulshada ay ka qayb qaateen sidii meeshan looga dhisi lahaa dhismahan aadka u qiimiga badan ee hadda aad arkaysaan ilmaha yaryar ee iskuulada aada doolarka ay bixiyeen dadaalkii iyo xaaqitaankii iyo dhismihii ururka hooyooyinka iyo dhammaan qaybahooda bulshada aad baan ugu mahadinayaa dadaalkii qiimiga lahaa ee ka qaateen taabagelinta taaladan dhismaheeda dhabahaantii bilicda taaladani waa meel aad u qurux badan oo la isdhihi karo koonfurta Soomaaliya meel quruxdan taaladan ay leedahay leh inaysan bajirinba ama ay tahay iyadu mid ugu quruxda badnay taa oo ku timid dadaalkii iyo isku tashigii ay sameeyeen dadka ku dhaqan degmada Garbahaare ardayga ugu yar ee grade 1 ka iskuulka dhigta iyo odayga noogu weyn iyo hooyada noogu weyn inta way ka wada qayb qaateen laga soo bilaabo degmada Ceelwaaq ilaa Luuq balad Xaawo ilaa Baardheere Buurdhuuba ilaa Garbahaare insha Allah waxaan doonaynaa inaynu dib u soo celino bilicdoodii inaynu ka shaqeyno wadooyinka inaynu ka shaqeyno horumarka bini'aadanka dhinac kasta laga taaban karo haday noqon lahayd resourceska Rabbi subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay ee midka beeraha iyo midka xoolaha kadibna aanu fududeyn lahayn waxyaabihii isku xirka u ahaa ee wadooyinka dhaqaalaha san uga faa'iideysano intaba insha Allah anagoo isku duuban hadafka iyaguna mid yahay inaanu ka wada shaqeyno cidna aynan marti ugu noqon
deegaanka iyaga iyo dhulka iyagana u soo joogsanno sida aan u horumarin lahayn aadaan kaga mahadinayaa ka soo qaybgalka aad maanta ka soo qayb gasheen inaynu muujinno wixii noo qabsoomay dadaalkii aan samaynay ka gadaale aad u mahadsantiin si aan wax uga ogaano dareenka bulshada ee ku aadan taalladan wadajir ee maanta sida rasmiga xarigga looga jaray siday u arkaan iyo sidoo kale faa'iidada ugu jirta bulshada ayaan mikrofonka la dhex qaaday iyagoona ii sheegay in ay tahay arrin mudan sharaf isla markaana maamulka gobolka ay wax weyn ku soo kordhiyeen muddadii ay hayeen hoggaanka gobolka magacayga waa Zakariya Daahir Muuse waxaan maanta ka hadlayaa dareenkayga waxaan ahay dadka shacabka ee degmada Garbaharey degan dhalinyarada Garbaharey waxaan maanta aad ugu faraxsanahay horumarkan maalmahan ka socday xarunta gobolka Gedo ee Garbaharey ma sha Allah bilicda taalada midnimo waa u jeednaa si qurxan tahay madaxtooyada waa u jeednaa horumarka wadooyinka ka socda waa u jeednaa waxaan rabnaa inaan isku tushano horumarka magaaladan ka shaqeyno mas'uuliyiinta gobolka waxaan aad ugu baaqayaa inaan horumarka ka shaqeyno iyo wadajir midnimo gobolka dhan meelihiisa kala duwan